maxay tahay sababaha ragga kaaga heli waayeen oo aad weli keli u tahay? waxaa laga yaabaa qaarkiin inaad ka fikirtaan qoftu inaanay qurux badnayn ama aysan diyaarsanin jismi ahaan, laakiin taas way ku yara caawin kartaa oo keliya. waxyaabo kaleoo ka muhiimsan ayaa jirta. iyaguna had iyo jeer waxay ka fakaraan waxaanan muhiim ahayn. dumarku dabcan iyagu waxaa loo abuuray soo jiidashada, taas masla diidane. haddaba ma dhacdaa inaad aragto qof adiga aad ka diyaarsan tahay dhan waliba, haddana kaaga badan xagga xiriirada? waxaad hadba arki kartaa inay wado rag badan ama ay leedahay xiriir dhab ah. sirtu waa inay fahmaan habka ay u soo jiidan lahaayeen oo ay u muujin lahaayeen qofkaas mid ugu jira aagga wareegsan ee jacaylka. anyway, waxaan maanta ka hadli doonaa sababaha keeni kara inaad keli ahaato, xiriir walbana uunan kuu noqon mid guulaysta adiga. raggu waa mid cajiib ah una baahan inaad si wanaagsan u fahanto. waxaan laysku dhaafayna waa sirta fahankaas. qayb yar waqtigaaga iga sii si aan kuu fahansiiyo ciladahaas qaarkood. muuqaalka like sii, haddii aad nagu cusub tahay noogu soo biir, haddii aad horey nooga mid ahayd waad mahadsan tahay. qodobka koowaad, isma beddeshid. cilada koowaad ee adiga sabab u noqon karta in xiriirkaagu sii socon waayo ama ay raggu kaaga heli waayaan waa inaad maalin walba aad ku dhaqamayso hal dabiicad, sida maalin walba oo inaad wanaagsan tahay oo aad sidii un iska tahay, ama inaad maalin walba xun tahay oo aad dood iyo muran un qofka kula dhaqanto. tani waxay keentaa qofka inuu kuga caajiso ama uu ku arko qof aan xiiso lahayn. waxaa laga yaabaa inaad inta badan aad tani dabiicad ka dhigato, laakiin lagaaga baahan yahay inaad isbeddel ku samayso dabiicadaas oo aad qofka mar walba xiiso gooni aad geliso. qodobka labaad, dadka ayaad isla haysiisaa. qof ayaad xiriir la samaysay, qofkii wuu ku soo dhoweeyey, waxaadna noqoteen laba qof oo isfahmay. waxaad adiga qofka u muujinaysaa inaad bal leedahay oo kale, sida tusaale maseer badan, xagii ka imaatay, meeqaa saacan ku sugaay, saacan maxaa waaye, iyo wixii la mid ah. dood maalin walba oo aan dhammaad lahayn, hadal iyo muran iyo war dhammaadba lahayn. dagaalkuna waa ficil kaloo aan kala joogsi lahayn. beddel marka lagu dhahana aadan beddelayninba. maalin walba waad wanaagsan tahay, subaxii adiga ugu horeeya oo dhahaa subax wanaagsan, adigaasa ugu dambeeya oo dhahaa habeen wanaagsan. waad wanaajisaa. daacadnimo iyo aaminaad xaddhaaf ayaad u muujisaa. ma jirto wax kaloo xiiso gelina qofka ku soo jiidan kartid adiga. dhammaan kuwani waa mid aan xiiso lahayn, qofkuna ku caajisi karo, ugu dambeynna sidaa lagaaga gaabin karo. 3, markay ku soo raadiyaan baahi badan ayaad u muujisaa. tusaale, adigoo iska singal ahaa oan wax xiriira lahayn ayaa wiil kula soo hadlay, dabcan adigana wax shaqo ah ama xitaa xiriira ma haysid. taasina waa mid weyn oo adiga kuga dhici karta. so qofkii markiiba waad la hadlaysaa, waqti ayaad siinaysaa, oo qofka marka uu wax kuu soo diraba waxaad siinaysaa jawaabtiisa, yacni xiiso gooni ah ma walahan. ragguna waxay aad u raadiyaan wax iyagu xiiso geliya. haddiiba baahidoodu noqoto mid soo taagan, hubaal qofku wuxuu odhan karaa tani waaba singal. markiibana stresska ayaa kugu badan karaa. soo ugu yaraan xitaa qofka daqiiqada u sug, ilaa xitaa 30 daqiiqo ugu badnaan u dhexaysii. markaana qofku wuu ku xiisayn karaa. adigoo ka cabsi qabaa inay kaa tagaan ayaad luminaysaa jaanis ay kugu joogaan. haddaad isfahantaan waa caadi oo waqti waa inaad siisaa qofkaas. laakiin haddii aanad isfahamsanayn oo wixiinu ay hor leeyihiin oo uu qofkuna yahay qofka ugu horeeya adiga, ha tusin baahi saa'id ah. 4, muuqaalkaaga oo aan dayactir lahayn. fikirkaagana oo hal nooc oo keliya ah. dayactirku muuqaal keliya maaha inaad xirato labis ama aad u muuqato mid ahaan qurux badan. taas waa muhiim waana loo baahan yahay, laakiin noqo mid u hadashaa si degan oo aan dhibaato lahayn. qof walba oo kula soo gala afka ama rabo inuu ku foodeeyo ha u jawaabin, waqtina ha isaga bixin, xitaa eegmaha siin. taasi waxay kaa dhigaysaa mid qiimo leh. waxay muujinaysaa inaadan diyaar u ahayn inaad u dhaqanto si ciyaalnimo ah. laakiin markaad noqoto qof foodada iyo kaftanka qiimo u yeela, taasu qiimahaaga ayaa meesha ku burburaya. dayactirka muuqaalkuna waa muhiim oo waxa quruxda jismiga geliya iyo furfurnaanta waa dayactirka nafta. fikirkaaguna yuusan ku salaysnaan inaad yeelato xiriiro badan keliya. ka fikir waxa aad nafta ku horumarin karto, kadibna iyaga ayaa adiga kusoo dabacarari doona. 5, kalsooni la'aan. kalsoonidu waxay muhiim u tahay naftaada
iyo shakhsiyadaada, waana mid adiga kugu hagaysa wanaag iyo qiimahaaga inaad garato meesha ay ku jirto. intaad naftaada kalsooni daro geliso waa intaad adiguna ka fogaato hiigsigaaga guusha. keliya xiriir inaad yeelato taas muhiim uma ahan, laakiin si nafsi ah, si shakhsiyan ayay muhiimka ugu tahay adiga. qof waliba wuxuu jecel yahay inuu haysto qof isu kalsoon, nafteeda ku kalsoon, jismi ahaan isu kalsoon, aan lahayn wax xitaa ugu yaraan niyajab ah oo ku saabsan nafteeda. waxaad niyadda gelinaysaa ma qurux badnid, halkaasaa la-dahay, sidaan maxaa kaa dhigay iyo wixii la mid ah. intaasoo dhan waa inaad hoos u dhigaysid naftaada ood u sababtay inaad dhigto meel aysan u qalmin. 6 habka loo hadla ayaadan aqoonin waa cilad kaloo weyn oo keeni karta inay yaraadaan asxaabtaada. qof walba oo adiga ku rabi lahaa oo xiriir idin dhexmari lahaa, hadalku wuxuu astaan u yahay socodka xiriirka. wuxuu muujinayaa xiisaha iyo qaabka xiriirka inuu noqon karo. laakiin taas beddelkeeda, haddii aydan isku fiicnin hadalka oo aydan ku wanaagsanayn, waan ka xumahay, laakiin xirfadaasi waa inaad barato oo aad la timaado hadal xiiso leh oo qof walba xiiso gelin kara. ma dhici karto qof hadal macaan oo aqoon u leh hadalka in laga tago oo la xiiseyn waayo. markaad samayso isbarbardhig oo aad isweydiiso ragga dumarka kuwee ay aad u xiiseeyaan, waxaa kow ka mid ah hadal macaan. had iyo goorna dumarka hadalka macaan waa kuwa raggu ku badan yihiin. 7 kibir badan. kibirku waa astaan xun oo aan bulshada dhexdeeda aan ku wanaagsanayn. markaad u fiirsatana, qofka kibirka badan mar walba waa keli oo raggu maahan mid ay xiiseeyaan. kibirku waa kala jiridda xiriirada, taana dumarku keliya gaaro maahan, raggu xitaa tani hadday la yimaadaan ma dhici karayso inuu sii jiro xiriiradooda. dumarkuna kaba sii daran. kibirkuna wuxuu noqon karaa mid kaa bedela dabeecadda oo dhan, mid kuu muujinaya keliya aduu inaad saxan tahay. xiriirada inta ugu badan 90% wuxuu ku burburaa 2 qof oo kibir badan dhexdooda. 8 xirnaan. ma tihid qof furfuran oo qosol leh oo kaftan badan oo dhoola caddeeya. sidoo kale ma tihid qof dadka ka qoslin kara kana dhoola caddaysiin kara. ma laga yaabaa mararka qaar inaad aragto ama aad maqasho asxaabtaada inay ku dhahayaan, qofkayga waxaan la qaatay habeenka ugu dambeeyay saacado badan, yacni 2 hour iyo ka badan, welibana kool oo keliya. adigana markaad naftaada u barbardhigto aad la yaabto. sirtu waa iyagu in hadalkoodu isku dheeli tiran yahay oo ay awoodaan inay qofka ka qosol siiyaan, u shactireeyaan. way hadal wanaagsan yihiin oo iyagu xitaa way furfuran yihiin. hadalkuna waxay wadi karaan ilaa 2 saac. waxaad adiguna isleedahay sidaas maxaan u noqon waayey oo 2 saac qofkayga ula sheekaysan waaye. waa intaas sirta. keliya isbeddel ku samee dabeecadaas. 9 aqoon la-aan. u muuqo mid aqoon leh even haddii aadan lahayn. dadku way isku jiraan, qaar ayaa wax bartay, qaarna dhexe ayay ku joojiyeen, kuwana ma aysan baranba weli. anyway, adiga u muuqo qof aqoon leh oo fahmi kara waxyaabaha muhiimka ah. haddii xitaa aadan aqoon u lahayn, isku day inaad barato. muhiimaddu waa cilmigaas, sababta cilmiga uu leeyahay waa luuqadda la isku fahmi karo. haddii aad halka la soo gaartay muuqaalka like sidoo kalena nagu soo biir haddii aad nagu cusub tahay, wax badan ay nagu dhiirigelinaysaa. qodobka ugu dambeeya number 10 ad adeeg iyo dabacsanaan la'aan. gabadhu inay adkaato waa wax wanaagsan, waa wax u wanaagsan diinteeda, sharafteeda iyo xitaa midda qoyskeeda. qodobkan waxaan u qaatay waxay ka mid tahay sababaha yareeya amaba aadan xiriir oo dhan u lahaan karaynin. ad adeeg muuji si aad naftaada iyo sharaftaada u ilaaliso, laakiin inaan kuu sheego daruuri ay ahayd. haddii aad rag badan isku aragtay oo xitaa aad jaanis weyday naftaada inaad waqti siiso, tan isticmaal. waa qaacido ay raggu aad u necab yihiin, mana jecla gabadha aad adag ee ilaalinaysa nafteeda. tani kaama reebayo, waad samayn kartaa, kumana dheeraanayo. qodobkaas halkaas ayaanu kusoo koobay. guys, muuqaalkeen maanta intaas ayuu ku egyahay. insha allah muuqaalka inuu idin caawin doono ayaan rajayn. waxaan codsanayaa muuqaalka inaad like garaysaan si walaalo badan u gaaro. sidoo kale aad noogu soo biirtaan haddii aad noogu cusub tahay. haddii aad horey nooga mid ahayd waad mahadsan tahay. rajoogkaagu waa inoo muhiim. intaynu ku kulmi doonno midkiisa xigaa. nabadgelyo.